الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادا شريتان يوريسي قاره ونولي لندنه محمد أحمد إسماعيل أما محمد عادره وكتر سنجب هدا وضني حورينتا وقادينيا أما أونلف محمد صورة كقاعدة ورباهين عالمية أي اللغوفة فيه ورباهين تبولشدة halkaas oo ay dad badan oo Soomaaliyeed wajigiisa ku arkeen isaga oo ku hubaysan qori geeslaaba maxamed intii uu halganka ku jiray waxa laga soo dhiibay dhul Soomaaliyeed waxaana loo soo gacan galiyay Ethiopia sheekada maxamed isaga ayaynu u daynaynaa inuu inoo faahfaahiyo maxamed ku soo dhawow jiritaan waan ku soo dhawahay Cabdi Maalig waad mahadsantiin maxamed waxa su'aasha ugu horeysa aan doonayno inaan ku weydiino bal nooga waran halganka goortii aad ku biirtay iyo sababihii kugu kalifay inaad halgan hubaysan qaadid wallahi niyo waa muddo dheer bay ahayd waxa weeyaan 2004 2005 kala wareegoodii ayaan ku biiray dagaalyaminta ururka waana kullay markaa sababta igu kaliftay waxay ahayd in dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray anigoo yar aanu adkeysan waayo ama waxayaan dadkii saaxiibada ahaa ama dadkii meesha igula noolaa ujeedaan dhibaatada loo geysanaya ama ka jirtay deegaanka baa igu kaliftay inaan naftayda ujeedahan aan ku talagalay inaan ururka ku biiro imsi jir baad markaa ku biirtay markaas 16 jir baan ahaa aan ururka ku biiray ka bacdi hawdkan ku jiray muddo dheer adugu ka bacdi markii ay ahayd taariikhda 2010kii ya xaalad caafimaad baa waxaan u aaday Soomaaliya taanad u tagin xaaladda caafimaad waxa weeye halkaad ku sugnayd adigu marka aad ku biiraysay miiba joogtay magaalaad joogtay bal nooga waran sheekada biiritaankaaga waxaan joogay magaalaan joogay gobolka Dhagaxbuur siiba degmada Dhagaxbuur baa joogay markaas halkaasaan ururka kaga biiray markii aan ku biiray doorkaan sida ku galay waxa weeyaan bulshada iyo ciidanka oo nafta wax u dhaxeeya ma jirto dad isku mid ah isjecel oo meel ka soo wada jeeday ahaayeen guumaysigii ama waqtigii waxay nimankii waxaan day wadanka xoog ku haystay TPLF ujeedahan ay israaciyeen dib gaaro adiga ku soo gaadhay ma jirtaa ama qoyskiin si gaara marka intaanad ku biiray dadkii ehelka ahaa waayo hadda dadka aniga ehelka ayaa adeeraday iyo familkoodii dadkii noocaas ah oo dhan waxa dhacday inay waxaan ay ku baxeen waxaan gacanta Ethiopia bal waxa weey sawir naga sii dhibaatadii markaa jirtay dadka maxaa lagu sameyn jiray dadka markaa jirtay waxa lagu sameyn jiray waxa weeyaan ciidanka militariga markaa xoog ugu badan wadanka ka geysan jiray waxay fulin jireen hawlgalo tacadiye ah oo waxa weeyaan ka dhan ah oo ah waxa weeyaan dad shacab ah masaakiin oo waxba galabsan in la laayo in la xiro ka bacdi hanti lagu soo furto xabad la iskaga dhufto gabdha yaryar oo waxay waxba galabsan xabsiga loo taxaabo dhibaato fara badan baa ka jirtay markaas oo aan qof ilaadan uu adkeysan karin oo dameer leh marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa markaa wadanka ka jiray ka bacdina way ka sii dareen baa ilaa iyo hadda waqtigii dambe way sii siyaadeen marka dhibaatadaas ay u kaliftay inaan ururka oo aan ku biiro waxaan ka midna aan ku noqday halkaad ka hawlgali jirtay waxaan ka hawlgali jiray deegaanka oo dhan gobolka Jigjiga waan ka hawlgalay Dhagaxbuur Nagob Wardheer Qabridahar waan ka wada hawlgalay ka waran duruuftaad ku nooleedeen maadaama aad cunaqabateyn badan idin saarnayd duruufta kulli way adkaysay laakiin waxaan isku qancinaynay waxa aan u raranahay ee naftan loo ballan qaadnay inay ka adagtay dhibaatada waqtiga aan haysata in rabnay inaan hamigeeda gaarno waxa jira sawir aan mar dhaw xusnay oo yaani ku jira warbaahinta bulshada sawirkaas bal laga waran yaani cidda ka qaatay iyo goorta iyo yaani taariikhdiisa waxa la qaaday 2006 bishii 6aad waxa iga qaaday wargeyskan New York Times wariye ka tirsan baa iga qaaday oo la dhaho wariye Jeffrey oo Mareykan ah 2006 markay ahayd bishii 6 taariikhda gudaha noogu yimid gudaha nala boqday muddo bil iyo waxa waa nala socday wargeyskaas aan naga qaaday markaas aan sawirka ku galay yaani sidoo idinku soo gaaray waxa wargeyskaasi si qaab dhumaal noogu yimid ka bacdi uu yimid oo waxaan qaab dhumaal ku soo galay gudaha ogaadeenaya muddo bil iyo waxa waa nala joogay حقود اللي تشوف بلي دارت ماشي توقتان بدي اللي تشوف ونلا وريق شري هاود كنا نقول شري وح كسر قمنا ونلا قبل مركا يعني سيدبه يعني قاب كيدو كسو قاري قاب كيبه هيد يعني aduu kullay ma garan karo sababta uu ku yimid gudaha laakiin dagaalyaminta ururka oo naf iyo waxay si kaashanayay iyo dad u jeedahan u dhaxeeyay baa soo galiyay gudaha
nidaam baa adoo ku soo galay isaas buu nagula socday ma adkayn xaaladdu markaas miyaanay adkayn yani socodka ma way adkaysa laakiin wallahi haddana wuu socday intaas waa nin u bareeray nin u bareeray ku tala galay wax ma gartay arrinkaas yani wax maydii qabtay muxuu ahaa arrinkiina indhaha ma ku soo jeediyey kolley bulshada caalamka waxaa ugu fara badan ee ahayd ama beesha caalamku naga aaminsaneyd ama qaarkood ay dareensanay Ethiopia ay dadka ku xuquuqin jirtay inaan argixisanahay wax fara badan naga caawiyay kolley inaan sanayn urur argixisa ee urur gumnimo oo dagaalan aan nahay adigu ma dhaawacantay marna adigu waxa mar uu soo gaaray laakiin hadda waa alxamdulillah waan gartay waxaad nooga warantaa muxuu ahaa sheekadii socdaalkaaga aan ma dhowtaa aad waday ahayd Soomaaliya sidaan ku aaday teeda waxay ahayd 2010 markay taariikhdu xaalad caafimaad baan u aaday Soomaaliya Hargeysa muddo ku noolaa caafimaadkii waxa laga qaban waayay waxaan dhaafay Muqdisho wuxuu joogay Muqdisho waxaan u maranayaa muddo 8 bilood meelahaas aan joogay ka bacdi waan soo laabtay soo laabadkayga markaa waxa iga qabteen Garowe aniga oo soo noqday oo dib iyo Hargeysa soo socda iyo Hargeysa iga qabteen nimankii waxayaan Puntland waxayna ii gudbiyeen safaaradda meesha ay ku lahayn qusulka Ethiopia ay ku lahayd Garowe ii gudbiyeen muddo 3 habeen meesha ay igu hayeen markaas halkee lagu hay Garowe dhexdeeda maamulka Garowe markaa ciidanka ay qabtay waxay ahayd ciidan waxaan Puntland oo kuwan BS ay dhahan Mareykanka ku tababaray iyo kuwan kale caadiga oo iskaashanaya ay qabtay waxay ii gudbiyeen station police bay waxa saacada igu hayeen markii way ii gudbiyeen waxay ii gudbiyeen meeshii safaaradda kuwan Ethiopian ku lahayn Tigray meeshaas bay waxa ugu hayeen 3 habeen oo gargaraacayeen adu wax waran wax sheeg dadkan wax ka sheeg waan diiday ka bacdi way soo qaadeen indhahay goor subax iga soo xidheen way soo qaadeen way iyagu garaacay maxay garaacay ku Ethiopian ka iyo Soomaalida goobta meesha joogtay Soomaaliya Ethiopian ku garaacay gudaha Garowe meesha lagu hayeen waa maxay waa Garowe dhexdeeda meesha madaxtooyada meel agteeda ah oo waxaan kuwan Ethiopian ka ay leeyihiin oo yani u ah xarun u ah yani kan wakiilka Ethiopia uu joogo xafiiskiisa ayaa lagu garaacay inta 3 habeen halka ay igu garaacayeen kuwa Puntland maamulka Puntland way igu imanayaan wax sheeg kuwan meesha safaaradda joogana wax sheeg bay lahaayeen labadoodu way igu garaacayeen ana deegaanka Puntland ma aqoonin socodna waan ku sii dhaafay soo dhaafay Puntland dhexdeeda wax ka sheeg xubnaha ururka u dhaqdhaqaaqa cidii gaariga ku soo saartay cidaad ku socotay nidaam noocaas ah inaan information ka siiyo wadanka iyo waxaan nidaam noocaas aan uga warbixin haye ka bacdi waan diiday waxaan kama aqaana koori goor subax indhaha iga soo xidheen way soo qaadeen waxay soo qaaday hal gaari oo waxaan Puntland iyo hal gaari oo kuwan safaaradda ay leeyihiin gaari lan gudus la xaqiis dama la soo seexiyay indhaha laga soo xidhay katiinad baa laga soo xidhay waa la soo qaaday waxay keeneen meel gambaro la dhaho ciidanka Soomaaliland iyo Puntland kala dhexdooda meel ay fadhiisan ku leeyihiin halka meel 10 kiiloomitir meelaha u jirtay gaari kale naga hor yimid gaarigii way iga dajiyeen markii iga dajiyeen markaan indhaha iska qaaday haye indhaha markaan iska qaaday markii way igu soo ordeen indhaha iga xidhan oo ay qabteen gaari kale geliyeen gaariga kale markaa waxa saaran 4 nin oo waxaan ciidanka Soomaaliland ah iyo hal Ethiopian ah saaraa xagga ku sugayay dhinaca kale halka ku sugayay gaariga baa la soo saaray indhaha iga soo xidhan gaarigu nooca gaari waxaan xaajadan laba shilay baa ahayd 4 daaqadaha oo midabkeedu soo gaari cad ah gaari cad halka mar baan arkay way soo kaxeeyeen waa 4 askari iyo waxaan hal Ethiopian ah oo ku Tigray ah may soo kaxeeyeen goor dambe oo waxaan salaadii soo fiid dambe abay waxay keeneen Hargeysa waxay keeneen meel xafiis ah oo Soomaali leedahay ma garan karo inay xafiis Soomaaliland ay leedahay inuu kilalka aha iyo inay waxaan dawladda federaalka Ethiopia ay lahayd ma garan karo laakiin waxa ka shaqeynayay Soomaali xafiis Soomaali ka shaqeynayay wuxuu ku yaala xaafadda Jigir buu ku yaala xafiiskaas xaafadda Jigir ee magaalada Hargeysa halkaas ay keeneen subaxii markay yimaadeen waxay ugu dhaheen bal waran oo waxayaan warbixin naga sii Hargeysa maadaama markaagii hore aad ka soo tagtay wadanka Hargeysa aad timid Hargeysa aad muddo joogtay ka bacdi waxaan aad Soomaaliya caafimaad u sii aaday in Hargeysa in aad warbixin naga siisan ka rabnaa waxaan markaa ka xusuustaa nin la dhaho Muxsin oo ciidanka Soomaaliland ka mid ah oo markii dambe ay soo kaxeeyay yaa ku jira rag ay wareysanayay kii qusulka meesha Soomaaliland oo ay safiirka ahaa Muxsin muxuu ahaa markaa muxuu ahaa waa ciidanka Soomaaliland ka tirsan yahay nimankan sirdoonka ee Soomaaliland inuu ka tirsan yahay aan malanaya markaa Muxsin uu ku wareysanay Muxsin iyo waxayaan iyo niman kale oo ilaa 7 Soomaaliya iyo 4 Ethiopian ahaan Soomaalida maxaad ka xasuustaa ninkaas magaciisa ka xasuustaa laakiin ilaa 7 nin bay Soomaalida ahayd
meeshaas ay igu hayeen waran bay igu dhan maxaan ka warramaa aan ka wariyo deegaankan wax nooga waran adigu waan isdiidnay muddo aad u afar habeen meesha ay igu hayeen oo ay gargaraacayeen habeenkii dambe indhaha iga xidhan waa lagu garaacay meesha dhexdeeda igu garaacayeen Soomaalida ku garaacay mise Itoobiya Soomaalida meesha igu garaacay wax sheeg ujeedaha kuwa ku waraysanaya garaacay muxsin kuma kamid yahay maalan kamid ahaa muxsin baa kamid ahaa muxsin ku garaacay markii dambe waxaan ku wada haddaan wax ku sheego ujeedaan maxaad ka faa'iideysaa gaariga ujeedaan oo faa'iideysato waa gaari Soomaaliland leedahay guriga aan wax ka qaadanay waa guri Soomaaliland leeyahay waxa weeyaan cidda wax noo soo iibisana waa dad reer Soomaaliland maxaad ka faa'iideysaa haddaan ku sheego marka habeenkii dambe indhaha iga xidhan waxay dhahay haddaad ku sheegayso oo waxba garanayn markii aad Hargeysa aad wadanka ka soo baxday ogaadeeniyay ee Soomaaliland timid guriga aad ku soo degtay nagee bilowgii marka waxa doonayaan in dad yani ay helaan ka helaan waxaan ku dhahan Hargeysa ma aqoon ujeedahan qofku cusub baan ahaa guri baan ku soo haagay guriga gabadhi joogtay hadda ma joogto way iskaga dhooftay Kambaalay aaday nidaam noocaas ah Hargeysa ku joogay markii dambe waan joogay hadda cid ujeedahan oo wana la shaqaysa oo idin tilmaamayna ma jirto adum daafar habeen meesha ay ugu gargaraacayeen way wareysteen waxa way iga waayeen ka bacdi waxay soo qaadeen muxsinkii iyo saddex askari way soo qaaday goor subaxa waxay ii soo qaadeen waxaan dhinaca Itoobiya muxsinka iyo laba nin oo Itoobiyiin ciidanka Soomaaliland ayaa ku soo qaaday bas katiinad bay laba dib Itoobiyan kulma socon ilama soconin katiinad bay laba dib igu soo xidhan way laba dib la lagu xidhan laba dib bay xidhan katiinad dib igu soo xidhan waxaan gaariga waxaan xaajiyada igu soo qaadan bay midna xagga ma iga farsiin midna xaggana askari muxsin iyo darawalkuna xagga hore ay galeen waa la soo qaaday inta Hargeysa marka u dhaxaysa waxa la indhaha gamayna soo xidhan Hargeysa iyo Jaalaan u dhaxaysa indhaha gamayna soo xidhan kama soo xidhan toos bay soo kaxeeyeen waxay keeneen xariga Soomaaliland iyo waxaan iyo qaybtan wajaale halkaas ma gaari qabaala soo istaagay oo ninkii xagga iyaga la socday soo kaxeeyay Itoobiyaanka uu ku jiro xarigu xagee ninkii xagee ka soo kaxeeyay ninkii markii hore la socday garowe markii la soo wareegay garowe markii maxaa laga soo wareegay maxaa la socday ayaa xagga kale ku sugayay ya xagga igu sugayay oo ka soo horeeyay xarigu gaariga la soo wareegay gaariga Soomaaliland xarigu soo talaabay qaybta soke wajaale xero ku taala oo boolis federaal joogaan way soo geliyeen marka labadii gaari wada socda gaarigii bay iga dajiyeen katiinadii bay iga furteen marka Soomaaliland Itoobiya igu xidheen markaa saasay igula wareegeen iyagina dib bay u laabteen indhaha iga soo xidheen marka Itoobiyaanka toos bay soo qaadeen indhaha ka soo xidheen indhaha halkii iga soo xidheen toos bay soo qaadeen haddana halkan bay keeneen marka jigjiga waxaan u malanayaa ma garan kara xero dhan ay kaga talay indhahan ka xidhnaa xeray muddo meelahaas waxa weeyaan adoo hal saac iyo bar meelahaas yaa xero ciidan bay soo dhaxgeliyeen xeradaas markaa waxaan jiingad yar bay igu xidheen muddo hal saac iyo bar meelahaas baan joogay baan u malanayaa jigjiga halkaas igu hayeen markaa meeshaas waxaan arkayay jiingada igu xidhan waxa ku xidhnayd waxa weeyaan oo ka shanqareysay ama aan meel yar oo dulaal marka qaar ka fiirinay gabadh yar oo weynayn oo loo haysto ururka niman Soomaaliya marka goobta joogay gabadha ku jir dilay oo lahaa uba yahay waxaan waran gabadh yar oo ciyaal ay ahayd markaas gabadhaas marka meeshaas waxaan ka ujeedahan aan dareen aan ku arkayay gabadhaas oo meesha lagu dhibaateynayo ka bacdina dhibaatadii ay sitay waan iloobay markaas nooca gabadha loola dhaqmayay ama ujeedahan ay u hadlaysay markii aan dareemay ani horey bay ii sii wadeen marka casarkii aad bay sii qaadeen jidkii toos qaasiyeen waxay gaayeen salaadii subaxdii sababa geeyeen subax Hargeysa iga soo qaadeen habeenimidkeed waxay geeyeen Addis Ababa marka indhahan sidii ugu xidhnaa waxooga markay sii wadeen waxay geeyeen meel god oo dhulka hoostiisa ii geliyeen meesha bay waxay igu xareeyeen katiinadii ay igu xidhan albaabkii soo xidheen markaas meeshaas marka adigu markay subaxaad buu yimid kii xagga iga soo kaxeeyay Soomaaliland ee Tigreega ahaa kii baa yimid subaxii bay warwareystay teleefankaygii aan sitay buu wuxuu igu dhahay lambarada noo sheeg dadkii lahaa waxaan lambarada Itoobiya ahaa wixii Soomaaliya ahaa xaggaas bay igu warwareysteen laakiin wixii Itoobiya bay igu dhahay lambarada noo sheeg waxaan ku dhahay lambarada ma garanayaan teleefanka qofan ka soo qaatay adoo meeshaas ninka ma garanaysa ninka marka kula socday ninka Itoobiyaanka hore bilaantii Soomaali arag magaciisa ma xasuustaa ma hal ugu yeeray magaciisa magac Soomaali uu sheegan jiray Axmed uu sheegan jiray laakiin nin Tigray ahaa oo Itoobiyaan oo luqadii aan aqoonin oo Tigray laakiin magaciisa ma xasuusto ninka isaga marka macluumaadii sheeg buu yidhi lambaradan sheeg waan diiday muddo 14 beri markuu yahay indhaha iga muuna xir jirin markuu wareysanayo nin turjumaan oo oday ah oo duqa uu soo xaysan jiray ninkaas markaa sigaar bacab jiray markuu sigaarka dibadda la baxaan uu wareysan jiray ninkaas xogo oo wareysan jiray goobtaan ku xidhan xataa ma aqoonin meel ay tahay ninkaas ay sheegay in Addis Ababa meesha aan ku xidhanahay
kabacdi wuxuu sameeyey 14 bari markay wareysanayeen yaa ninkii waa la bedelay goor subax ay soo galeen indhaha la iga xidhay laba dib baa la ii xidhay waxaan kursi bay igu fadhiisiyeen laba nin oo midna Turjumaan yahay midna Ethiopian yahay ay soo galeen markaas nimankaas markaa waxa weeyaan markii way wareysteen waran bay igu dhaheen markii aan wareysigii aan si fahmi weynay garaacitaan bay igu bilaabeen muddo adugu waxaan malanayaa 9 bilood si toos ii wareysanayeen nimankaas meesha godka igu hayeen katiinada igama furi jirin meesha waa meel aad u qabow looxaan safiitaa meesha taala xaga ka sii hooseysa biyaha ku jira xagana waa korkii oo dhulkii xataa meesha irkabtan baa degtay korkeeda oo xaram military aan malanayaa irkabtan baa korkiga degi jirtay muddo 9 bilood markii ay hayeen baa waxay soo qabteen laba nin oo saraakiisha ururka kamid ah Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Dheere ninka la dhaho iyo soo qabteen waxa kala wada labadani Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Dheere yey oo Kenya laga soo dhiibi jiray waa gartay nimankaas ay soo qabteen goor subaxa markaa kii oo faraxsan baa yimid wuxuu yiri maxaad qarinaysaa Sulub iyo Cali Dheere waan soo qabanay madax sheegtid buu igu dhahay way ka saafduubeen Kenya laga soo dhiibin laga saafduubay laga saafduubay nimankii way yimaadeen mas'uuliyiinta ahaa waxaan maxaad qaranaysaa bil madax xaqreed waxa ma qaranayaan koori muddo markii sii hayeen goor subax indhaha iga xidhaan way qaadeen waxay u dhahay nin baan ku geenaynaa ninka dadkan waan garanaya waad baxaysaa bay u dhahay ninkii baa waxay ii geeyeen Cali Dheere waxay u dhahay hadaad garatay waad baxaysaa Cali Dheere ii geeyeen waxay u dhahay ninkan maad garanaysaa ma garanayaan koori waad garanaysaa aduguna waan garanayaa ma garanayaan koori adoo filay micni hadaad xitaa garatid inaan ku daynin adigu meeshii bay waxa dhowr jeer bay igu celceliyeen waxa ay wareysan jiray oo qayb ka siinay wareysiga nin Chinese ah oo cadaan ah oo qoran Chinese ah oo iyaga la shaqeynayay oo ninka ugu badan ciqaabta ugu far badan ama wareysiga ugu far badan igu bixin jiray muxuu ahaa ninkaas China China ka soo jeeday marka uu ku ciqaabi jiray wareysiga ugu badan iyo waxyaabo ugu dhibaatada ugu badan isaga qayb ka ahaa ninkaas baa adigu meesha yaa goobtan jooga marka uu ninkani weydiinayo in mas'uulka Cali Dheere ka bacdi ma garanayaan koori way bixiyeen godkii igu celiyeen markaas garaacitaanka iga daayeen marka 9 bilood marka xidhanahay wax xukuna wax maxkamad ma jirto cadeed ma jirto waxaan wax ujeedaan nolol ah iftiin ma jirto waa god dhulka hoostiisa meesha waxa lagu soo eedeynayna ma waa ururka oo ayaad kamid ahaa kaliyeed dambigaaga inta waa inta spesa marka hadii aan waxba qiranaynin oo waxba sheegin oo dhahayn ujeedahan waxa sanaqana dadka sanaqana saasanahan waxa sameyn jiray ujeedahan filin in laga duubo ama waxaan xog aad muhiim aad siiso laga waayo inaad meesha ku jirto waad ku ciqaabnaanaysaa intaad wixii sheegayso weeyaan markaas oo iga sii baxay halkaan baad ku jiraysaa naftaada halkaas muddo marka waxaan ku jiray meesha 16 bilood iyo 12 habeen markaan ku jiray baa goora fiiday ii yimaadeen indhaha iga xidhan waxay sidoo kale ii soo bixiyeen jarjarta ii fuushiyeen waxay ii galiyeen gaari la gurusle xagga dambe ii galiyeen way qaadeen markaas waxay geeyeen xarunta dambe baarista ee Makalaawi oo dadka lagu garaaco lagu ciqaabo sabab ku taalaha waa waxa kilalada ujeedaan ay soo gudbiyaan wixii ay federaalku soo qabsadaan baa goobta lagu ciqaabaa waxaan waa qaybo badan bay markaa leedahay jeel kasta waa ciqaab ka jirto mar kasta waxa way ciqaab jirto waa in lagu ciqaabaha qasabaha qaybo badan bay markaa leedahay qaybtaas injaalkaas waa xabsi aad u weyn meesha laga maamulo federaalka dhan waxay geliyeen qayb la dhaho Saberia oo dhulka hoostiisa weeyaan waa 12 qolba markaa ku yaala waa qaybta ugu ciqaabsan waxa 4 qaybood Makalaawi ka kooban yahay marka qaybtan Saberia la dhaho waa meel dhulka hoostiisa goobtaas ay geeyeen waxay ii geeyeen 4 nin oo Ethiopiana iyo waxayaan 2 nin oo Soomaaliya qolka ay geeyeen bay ku jireen labada wiil Soomaalida waxay haysteen qoladii shaabtay u haysteen qolkaas ay ugu soo xidhan goorfiida muddo bilaan markaa meesha ku xidhnaa imayna waraysanin wax dhibaato iimayna geysanaynin goobtaas ay igu hayeen ka bacdi waxay igu sameeyeen markaan bil xidhnaa yaa waan dacwooday maxaa ujeedaan goobta la igu hayaa ma la ii waraysan laaya way iga amsan ma garan karay igu dhahan bil ka bacdi bay ii yimaadeen goor maalin sabtiba ii yeeray nin taglay la dhaho waxaan saraakiisha Tigray kamid ah oo qaybta sirdoonka u xisaaraa Makalaawi yaa maalin ii yeeray sabti waa nin weyn oo duqa wuxuu yiri magacaaga sheeg waan u sheegay Soomaaliya markaa joogtay la markaa isticmaal jirtay sheeg bii waxaan ku yiri muddo 16 bilood iyo bishan hadda meeshaan ku jiray 17 bilood baan xidhanahay ma ku yiri waxay lambar baad weydiinaysaa hooyadii baan hadda xusuustaan baan ku yiri hadda ay hor keento wiiskii tagay maalintii dambe xaddu ii yeeray soo kariga waraysi markaa iga qaaday wuxuu u dhahay ilaa maanta dhalatay ilaa hadda bilow taariikh nololeedka ka soo war
waan u warramay saasaan ku soo barbaaray saasaan ahaan jiray waxa iga dhan baan u warramay ururkan waqtigan ku biiray meesha la iga soo qabtay goobtaan hadda ku jiray intuu kacay buu dharbaaxay wuxuu yiri ilaa iyo hadda waxaad ku hadlaysaa waan kula yaabanahay buu yiri waxba sheegi bis waxa weeyaan sharci guri Ethiopia ka sareysa oo guriga lagu wareystay ma jirto sharci gurigan aad hadda ku jirto guri ka sareeya Ethiopia oo lagu wareystay ma jiro ujeedahan sharciga guri ka sareeya lagu geeyo ma jiro marka ilaa iyo hadda waad ciyaaraysaa waxaan ku yiri sanad iyo waxaan 17 bilood yahayseen oo digaraacaysan waxa 17 bilood iga soo waday maanta iga helimis marka sida awgeed waxaan ku sheegay wax ka bedelan igama helays muddo 3 bilood ay goobtii igu hayeen wareysanayeen gargaraacayeen isaga nin kale oo gabar la dhaho in gabar salaas iyo kan kale waxaan taglayga labadooda gacanta igu hayay way wareysanayeen adoo waxba iga qorqoraan ka bacdi waxaan anu jeedaan si live oo qaranin oo iyaga turjumaanka isku hagaajiseen baa la iga qoray maxkamadda subaxii dambe la geeyay marka waxaan xidhanahay 12 bilood yan marka xidhanahay maxkamadda geeyeen maxkamadda sidii igu geeyeen maxkamadda waxay ku dhaad way weydiisay su'aasha waxaan lagu eedeynayo ururka ONLF ee ka dhaqaaq gobolka ogaadeen dawladda Ethiopia u taqaano obnag adduunyuhuna u yaqaan bay ku dhahay alqaacidada kamidna ahaan jirtay waan ku qoslay marka wuxuu yiri maxaad ku qoslaysaa waxaan ku yiri ururka ka dhaqaaq gobolka ogaadeen Ethiopia ay obnag u taqaano adduunyuhuna alqaacidada u yaqaan maxaa looga soo qaban waaya caalamka waa ku jooga dal kaste Mareykan bay joogan Australia joogan Carabaha joogan Afrika joogan haaban ku yiri kamid miyaad ahayd bigu haaban ku yiri maxaad u dagaalamaysaa in Ethiopia ka go'o muddo aad u celcelinayeen 3 bilood meelahaas ka bacdi way xukumeen markay xukumeen yaa waxaan ku yiri waxaan codsanayaa intii aan xidhnaa ama waxaan sababta jadaan maxkamadda ii keeni waayay baan codsanayaa wuxuu ku dhahay wax xor baa u tahay waraaq soo qora subaxii damar waa la sii qaaday waxa la igu tuuray kilalka axmaarada xabsi ku yaala maxaa lagu xukumay sano waxay ugu xukumeen muddo 8 sano ah ay ugu xukumeen markaas ka bacdi kilalka axmaarada igu tuureen kilalka axmaarada waxaan joogay 9 bilood 9 bilood markaan joogay ka bacdi gaar ahaan magaalada Bahardar xabsi ku yaala oo Shuwaar Shuwaar Beed ba xabsiga la dhahaa laakiin oo heer federaal baa laga maamulaa hadii soo laga maamulaa xabsigaas 9 bilood baa xabsiga ku qaatay way soo celiyeen waxay igu soo celiyeen xabsiga qaalidii adisaba ku yaalay weyn xabsigaas markaan intii kala ku dhameystay anoo sidii u xidhan baa waxaan kacdoonkii markii uu bilowday yaa dadkii ugu horeeyay 2000 iyo waxaan 17 bishii 12 yaa anagoo 200 iyo waxa bay soo ururiyeen oo dadka xabsiyada laga soo ururiyay yaa waxay dhaheen waxaan dadkan siyaasadda u xidhan baan sii deynaynaa kacdoonkan si ay ugu wajahaan kacdoonkii Ramada markaasaan ku soo baxnay sidii nagu soo daayeen wayna kaxayeen jaamacadda booliskiina geeyeen oo 30 kilomitir soo ka shaysa sanaafa meel la dhahay ku taala jaamacadaas ay seminar noogu akhriyeen dhowr cisho nagu hayeen meeshaas propaganda noogu akhriyeen ka bacdi siyaasi nagu sii daayeen xorriyada kadib sanadada kadib 4 sano iyo waxaan iyo 8 bilood ka bacdi 4 sano iyo 8 bilood ka bacdi xorriyada xagaa tagtay kadib markiisa lagu sii daayay ka bacdi markii aan tagay Addis Ababa aan joogay intii oo waxaan oo meeshan lama iman karin oo dhibaatada ka daran baa jirtay waayo waxaan aaminsanaa haddii aan soo dhaafo xabsigaas inaan xabsigan kala gali lahaa jilay waa markii muxuu ahaa taliskii halkan Cabdi Ilay joogay jijiga joogay marka waxa weeyaan dhibaatada ugu badan ee ka baqi jiray hadana waxay ahayd inaan xabsi labaad galo anigoo hadda xabsi ka soo galay inay Addis Ababa intii la igu yimaado waayo sharci ma haysan wadankan kaga baxo meel aan u baxana ma jirin wadankii Soomaaliyeed ee aan u baxay waa kala iga soo qabtay waxaan goobtan Addis Ababa ay keenay Soomaa hadana anoo sida hadana ku jira waxa igu kalifaysay inaan Addis Ababa dib ugu sii dhuunto intii waxaan taliskii Cabdi Ilay uu sii joogay ka bacdi laakiin alxamdulillah durba way iska fududaatay hawsha markaan wax sii joogay baa Addis Ababa iminka waxa weeye sanadaad u soo martay muxuu ahaa halgankii muxuu ahaa u dagaalamaysay dhibaataad yani muxuu ahaa aad u soo martay adiga iyo qeyrka baa soo mariyay saad u aragtay halganka iminka wallahi alxamdulillah wixii aan rabnay horta kulay mooli maanaan helin oo jeedahaan in Ethiopia ka madax banaanaado gobolkani laakiin hadana alxamdulillah waayo dadkii hadii ay xuquuq helaan ama ay xorriyada meel ka samaanta ay u marayaan waa alxamdulillah laakiin hadafkii ahaa xorriyada inaan helo oo Ethiopia ka goono wali ma aanan gaarin insha Allah intaan gaaraynana kulay waan ku sii jireynaa hawsha ka waran dareenkaaga adoo Soomaaliya oo dhul Soomaaliyeed jooga in Ethiopia lagu soo dhiibo wallahi aad bay ugu dhibadnayd waayo waxyaabaha
dee horeyna rag fara badan oo iga horreeyey oo saaxiibaday looga soo dhiibay waayo dad waxaan ku tirsanaynaa in laga soo dhiibay ka badan 470 qof dad ka badan oo qaarkood ilaa hadda aan lahayn halkee laga soo dhiibay laga soo dhiibay Puntland iyo Somaliland dadka marka tiradooda intaas tahay ama noocaas ah waa dhibaataynteeda leeg waxaan aad bay noo danqaysaa anigana iga horreeyay igana dambeeyay waxa weeyaan waa mushkilad aad u dhib badan niman tikray oo kooban oo tayo yar oo waxaan ducfiya in ay u adeegaan iyagoo Soomaali oo sharaf leh waa dhibaataynteeda leeg marka aad bay ii danqaysaa xiriirka ka dhaxeeya muxuu ahaa tusaale ahaan oo kale imika markaad garowe joogtay waxaad tidhi muxuu ahaayey meesha lagu sheego muxuu ahaayey safaaradda ama qunsuliyadda ama yacni wakiilka xafiiska wakiilka Ethiopia ee uu garowe ku leeyahay in lagu keeno bal nooga warran halka ayaa joogay sidee lagu keenay yani cidda kula tacaamulaysay yani yaa ka mas-uul ahaa in halkaa lagu keeno dadka gacanta ku haya mas-uuliyadda gaarka lahaa ma la ogaa dawladdu yani dawladda Puntland ma ogeyd mise shakhsiyaad baa ku shaqaysanay ma waxaan aaminsanahay aniga qabashadayda dad badan oo insan ogeyn way dhici kartaa in laga soo dhiibo laakiin hadda xukuumadii Faroole waqtigeedii baa hadana waqtigii la soo dhiibay waxaan aaminsanahay saameynta ugu badan inuu Faroole qayb ka ahaa waayo kalsoonida ay ugu haysteen ama ay dhexmarinayeen ama ujeedaan in cidna waxba ka qarsanaynin de xukuumaddu si cad bay oo ay u ogeeda wada shaqayn ah oo caadi ah xukuumadii Faroole waxaan arrinkaga yaa maamulayay oo ninkan ku dhiibayay muxuu qoladan halkan ku keenayay amarka yaa bixiyaa dareemayay inuu bixinayay والله ما قرن كرا لكن وعيدن كتريا عيدن كبلان iyo waxaan xukuumadooda oo si toos ah adigu taliska oo dhameystiran ba muxuu ay wada shaqeyn ba jirtay caadi ba wada shaqeynaa ma jiray waayo nimanka saraakiisha mar walba way soo galayeen Somaliland in Puntland saddexda min meesha igu hayeen si toos ah u soo galayeen su'aalo ay weydiinayeen waxa jirtay maxbuus kale oo ururka oo kamid ahaa ay ku dareensanayeen inuu kamid ahaa u haysteen markaas inuu goob station boolice ku xidhnaa markasta kuwan taliyaasha ciidanka Puntland inta ii soo galaan bay ugu lahaayeen ninka ma taqaanaa halkan baan ku haynaa oo la kamid yahay nidaam noocaas adiguna ma aqoon ma aqoon ma garanayn ba marka ujeedahan jirdil waa lagu geystay jirdil bay geystay lagu garaacayaan qasabha inaan xoog ku bixiyo lambarha la ii keenay lambarhadan shay war taleefankayga miyay ku jiraan Soomaaliya garaacaysa mise Ethiopian Ethiopian ku taagan maya Soomaalida iyaga kuwa garaaca sameynaya waa Soomaaliya waa Soomaalida kuwana way taagan yihiin way taagan iyagoo live ay fiirinayaan ma Ethiopian way taagan Soomaalida ku garaacaysa ka fulinaya waa Soomaaliya waa Soomaaliya ka ficilka sameynaya aynu nimaadno xagga marka lagu dhiibayay sarkaalkii kula socday markii lagu dhiibayay muxuu ahay gambara lagu dhiibayay gobolka Sool ee Soomaaliland lagu dhiibayay صح xagga ya iska weydaarsaday waxa iska weydaarsaday taliya waxaan boolis oo Puntland ah yaa hal qabaal oo ciidan ah iyo waxaan laba saddex qof oo Ethiopian ah iyo hal turjumaankooda afar noo Ethiopian macala turjumaankooda iyo hal baabuur oo Puntland ah qaaday ma aqoon waayo Puntland ma dhex joog jirin oo xataa dawladeeda nidaamka u dhisan iyo magacadooda ma haynin nidaamkaas baa waxaan yaa soo qaaday meesha ay keenay goobta markii gaariga iga dajiyay maan indhahan iska furay waa marka ay ku celinayaan mar labaad gaariga kale ay gelinayaan mar labaad intuu dhirbaaxay iyo igu soo orday inuu si xoog iga xiray kuwan kale kula wareegay yahay kuwan kale la wareegay waxa Soomaalida halka mareysay ninkan muxsin la dhahay la socday ninaan hargeysa ku aqaanay baa caamka ilaa hadda inuu joogan jecelahay waa Sacad Muuse xagga qaybta Somaliland ninkaas waan aqaanaa Somaliland qaybteeda wuxuu ka tirsan sirdoonka Somaliland ka tirsan yahay iyo laba askari iyo halka dirawalka iyo nin Ethiopian afarta qof ayahan muxsin ba marka xaggan gabadha yimid daanta shan gabadha u talaabay waxa ay halkaas igu yimid waxaan katiinadii bay igu xidhaan gaariga igeliyeen markaas way soo kiciyeen waxa uu dhaxda waan ku soo sheekeysanaynay oo nimankan hadda ujeedaan Somaliland inay wareystaan bay damceen waxay ugu dhahaan waan soo wada hadalay markaad joogtay Garowe inaad Hargeysa joogi jirtay waxaan kaaga baahanahay markaan Hargeysa tagno inaad waxaan xoogna siiso macluumaadna kadib miyaan ku sii deynaa kulay ujeedahan waad baxaysaa bay leeyihiin laakiin ma aha wax qofka bilaadanka qancin kara laakiin waad dareemaysaa in been lagu sheegay waxaan ku uriyay xageed geenaysaan Somaliland maxaan idinka warramaa ujeedaan xubnaha ururka ONLF ama dadka taageera bay ku dhahay ama taageerayaasha ONLF ama xubnaha ONLF baan ku dhahaa anigii baad wadataan aniga hadda waxaan Cabdi Maxamed Cumar baad geenaysaan bari New Boris aniga ama burco ku soo noqon doona New Boris baan noqon doona maxaa faa'iideedii ku jirtaan ku cadaawada inta laga inaad hadda isku keeysan hadda tan qoreydii soo qaadanaya Cabdi Maxamed waa inaad arkay qori buu dhiibi bari New Boris iga soo dhigi faa'iideedii ku jirta maxay tahay baan ku oray
وانا dhacday sheekooyin noocaas ah dhacay dad la soo dhiibay oo muxuu ahaa nacayb lagu abuuray nacaybsho lagu abuuray ha oo la yiri kuwii ku soo dhiibay iyaga ku soo dhiibay imika dhulkaaga waad joogaa shaqaysan lu yiri way dhacday ujeedaan dhibaatada ugu badan ee ay marka maxay ku jawaabeen marka tiraad kulay saasan wala soo deynay maxay soo qamanin waxaan wadanka Yemen ku geenaynaa nidaam noocaas ah dib ma laha waxaan 300 iyo waxaan 40 qof wadada ka doofiseen kuwii ma lamid ay geeyaan ku ilaaran laakiin xog ka badan inaad inta iga heshaan ujeedaan oo wana ya taageeraan wadi haystaan Soomaha ama inaan xumin waana qiraysaa inaad tahay oo la fadhiranay laakiin inaan saameyn dadka bulshada ku dhex yeesho iyagu isku dayeen oo wax la iga faa'iido ujeedaan inaan dad kale uga qabto inaan nidaam sameeyo wada furanta inaan sameeyo oo ujeedaan dad shacab inaad in badan galaafatid inaan galaafto dadkan baa ahaan jiray cabsi darteed ama garaac maadaama dadkii xitaa wada ogtahay dad badan oo muxuu ahaa soo cararay dad muxuu ahaa xubna ah baad ogtahay oo jooga way soo qaadeen indhaha iga soo xidheen suuqa doqon waayo la yiraahdo habeen keenan waxay ku leeyihiin dadkan suuqa jooga ee maraya hal qof nooga sheeg waad baxaysaa hadaan ku sheegno dadkaas halkay ku keeneen suuqe doqon waayo dhexdiisa Hargeysa dhexdiisa suuq bay ku keeneen gaari beer soo la muraadiisu waxaan beer soo bay soo geliyeen dadkan hal qof nooga sheeg dadka maraya suuqa hadda qof garatay waa isku diirina sayrurti waa nala shaqeynaysaa nidaam marka wallahi waxa habeenka maalinta lagu istaajiyay dadka meesha maray cidnam ka garata dadka meesha maray marka lagu istaajiyay kulli dad badan meesha way marayeen dad aan aqaano ama aqoon ahaan aan aqaano oo de hore aan soo noolayn ama aan meesha ku bartay way bixeen way marayeen jidka waayo marka ma tilmaamin ma sheegnaha waayahay marka lagu tilmaamayo lagu leeyahay dadka wax ma ka garanaysaa gaari baad ku jirtaa meed ka tiinaysan tahay gaari beer soola oo waxaan la gurusala ayaa laga tusay daaqada dhinaca laga xiga dhinaca askari baa iga fadhiya waana ka tiinadeysanahay halka ka garaa lagu leeyahay maraya hal qof ka sheeg waad baxaysaa hadii aad run sheegayso ujeedada muxsikiin oo kula socda muxsin wada socda markaas waa ninka ugu saameynta badan buu ahaa ujeedaan markaa ka shaqeynayay goobta Ethiopia iyo Soomaaliya wax kala iibsiga ninkan tikreegana isku xidhnaan يعني wuxuu la shaqaysanayay muxuu ahaa qolada ka waran badi marka waxa weeye aan laftiisa loo eryanayay Hargeysa lagu soo dhaweeyay صح goob kasta meel kasta muxuu ahaa laga eryanayay lagu soo dhaweeyay ka waran saxa bedelay marka alxamdulillah waxa la dhihi karaa waxayaan dadka wax yar baa xumaas laakiin dhibaatada ugu badan waqtiga xumaa waqtigaas kala waxa soo dhan يعني maxaad malanaysaa maxay isbedelay yani مثلا meelihii laga soo dhiibayay miyaga wanaagsanaaday oo dadkii daayay waxa bedelay waa kuwan imanka soo dhaweynayay oo la fahmay waxaan dareemaynaa inuu waqtigu xumaa laakiin uusan dadka miisaaniyadiisa ayna xumaan markii bulshada dadka Soomaaliyeed la fiirinayo ma dad Soomaaliyeed ismaad arag waxaan ka hadlaynaa maamul baan ka hadlaynaa dadka shacabka Soomaaliyeed raalli kama yahayn in muxuu qof Soomaaliyeed la dhiibo dadka shacabka caadiga Hargeysa Burco Garowe shacab Soomaaliyeed Muqdisho gaalkacyo qof Soomaaliya oo Soomaali jecel in la dhiibo shacabku waxa weeye arrinka weydiidayn laakiin waxaan ku leeyahay maamuladii maxaa bedelay maalin dhawato Cabdikariim Sheekh Muuse Hargeysa lagu soo dhaweeyay maamulkii dhiibayay ama Puntland ha joogo ama Hargeysa ha joogo maxaa bedelay ma iyaga wanaagsanaaday oo muxuu ahaay wanaagsanaaday mise sabab kala jirto oo isbedeshay waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu badan ee haysatay waxay ahayd siyaasaddiina maadaama isbedeshay siyaasadda Itoobiya ee waqtiga goobta ka shaqeynaysay Ethiopia isbedeshay marka iyagu ismay bedelin banaamij marka Ethiopia ayay isla bedeleen waayo waxaan aaminsanahay maamulkii Ethiopia ka adag haduu maanta yimaado oo damcaan inay saameyn lagu yeesho in Soomaalida lagu sameyn karo wali Soomaali isbedel caadi ah oo iskooda iyagu xorriyadooda ay isu bedeleen inaysan ka ma jirin wali Soomaali ismay bedelin taasana aaminsanahay aad baad mahadsantahay daawadayaalkaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Ismaaciil Maxamed Cadare oo ka tirsanaa ama kaba tirsanba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo dhibaato u soo maray halgankan oo dhul Soomaaliyeed laga soo dhiibay oo loo dhiibay Ethiopia laakiin maanta yani si la soo daayay oo si xorriyada ku nool dhulkiisi hooyo waxaan waraysigan ku qaadnay magaalada Jigjiga waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh